وأكبر قبتين هل كان يكمل عبنتي قبل كل بعض الديوان قلت يكمل عبنتو وشيدي السفر كي يروحوها إن أنا مصعب غير أوضاع السرن كلا قايم الله ديوان قلته وأنا حرقوا نقولنا حالها جود قبل حسبي وطني وبس أنا أوله هذا أنا موضوع وحنو سعنو كريه إن أنا شعبي جيجا كلا قيم قادنا ديوان قلته حكوا بابنوين ديوان قليان وأي ديوان قلته سب بحده وأن كلا الله هاي أيوة كلام فريدة نوديس الدين وحوي الشعب ديوان قليو سياي حقه هلام إن الدور الشضا حقه يشان العضيان وحقه يشان إن يسبدل الطبيعيات سو يسبدل الديار منهم يسبدل الديار منهم وهاي يسبدل هم فين كنا مركز ديوان قليسان وعضيسان وشيدة أنا عاو حفلتنا دكتورية إني وحياة تاعي إن أنا يدين مهاتنا قالوا وشيدة كلام ما يحين وأيو ديوان قريت قيم مهمة كتير وإنها يجعل خصوصا كماي سودوين تدل سودوين هي دمان ديجان ندا دبر كاو بطنا بركاو مدنتين حفلتنا ينكبضن با روتي ومدنتين وحنا نجي مدنتين إن أنا يدين إنه هو يدين مهاتنا قالوا waxaan ku soo aragnay diiwaan gelinta cabashooyinka dadku noo soo gudbinayeen oo tiro badnaa oo ay ka mid ahaayeen in goobuhu yar yihiin oo aanay ku fillayn dadka isdiiwaan gelinaya inay kala fog yihiin goobuhu in internetku meelaha badan uu ka xumaa oo speedka ama xawaaraha internetku aad iyo aad u hooseeyey waxyaabahaas oo dhan waxaan ugu gudbinnay guddiga doorashooyinka qaranka si ay wax uga qabtaan waxay kaloo dadku ka cabanayaan in hadhowto goobaha soo hadhayaana ay runtii yihiin goobo aad u yar oo aan ku fillayn shacbigu inay isdiiwaangeliyaan gobollada kalena way la qabaan cabashooyinkaana waxaan ugu gudbinnay mas-uuliyiintii arrintaasi ay xusaysay waxaanu shacbiga reer awdal uga mahadnaqaynaa runtii adkaysiga u adkaysteen duruufta qallafsan ee aanu soo aragnay ay ka mid ahaayeen abaaruhu ay ka mid ahaayeen biyola'aantu ay ka mid ahaayeen raashin la'aantu iyagoo intaasi hayso haddana waxay ku dadaalayeen in ay diiwaangelinta si buuxda u galaan waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu abaarta inoogu bedelo roob degdeg ah oo dhaqso ah waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa iyo beesha caalamkaba inay dadka u soo gurmato oo looga soo gurmado abaaraha haya xisbiga waddani wuxuu diyaar u yahay inuu shacbigiisa ku taageero wixii intii awooddiisa ah si dhaqsaana waanu ugu baaqi doonaa haddii ilaahay ka dhigo waa xisbigu taageeradiisana waa arki doontaa si dhaqsaan haddii ilaahay ka dhigo waxaanu haweenka gobolka awdal aan uga mahadnaqaynaa cududda ay muujiyeen ay halkan isugu yimaadeen waxaanu qabnaa in intay tahay hordhigii oo keliya waayo hoolkani inama qaado wiina qaadaya insha allah marka dambe garoonka kubaddayna ku shiri doonaa shirka ku-xiga haddii la qadaya waxaanu idinka rajaynaynaa inta maqanna inaa mahadnaqa naga gaadhsiisaan una soo diyaargarowdaan inaynu isbeddel samayno mid nabadgelyo ah oo dalka horumar u keeni doono mustaqbalka insha allah siyaasadda xisbiga ee haweenku way caddahay waxay ku qoran tahay barnaamijkiisa wuxuu siinayaa saabi qaybsi badan
حسبك وطني هوينك سوماليلاند waxaan ku xaqiijinay shirweynihii aan u qabanay haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah xisbiga kaliya ee shirweyne u qabtay haweenka Soomaaliland waxaan rajaynayaa cabashooyinka badan ee haweenka Soomaaliland haysta inay kaga bixi karayaan markay taageeraan xisbiga waddanka